halkani waa Daami waxaafad kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ururka Kalkaal Relief and Development Organization ayaa deeq raashin ah ugu qaybinaya dadkii danyarta ahaa ee xaafadda deganaa ururka khayriga ah ee Kalkaal Relief and Development Organization oo ah urur ka shaqeeya caawinta dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolada Somaliland ayaa wajigii saddexaad ee barnaamijka Afur Kalkaal oo sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan ay mucaawinooyin ku gaarsiiyaan dadka baahan waxa ay deeq raashin ah u qaybiyeen 100 qoys oo kamid ah bulshada danyarta ah ee ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa gaar ahaan xaafadda Daami maamulka barnaamijka khayriga ah ee Afur Kalkaal ayaa hawshan raashin qaybinta ah ka soo fuliyay gobolada dalka Somaliland waxaanay aad ugu mahadnaqeen dhammaan dadka muxsiniinta ah ee ku kala nool daafaha dunida isla markaana ka qayb qaatay barnaamijka Afur Kalkaal waxaanay sheegeen in dhammaan dadkaasi Ilaahay weydiinayaan inuu barakeeyo dhinaca kale dadkii deeqahaasi la gaarsiiyay waxay aad ugu mahadnaqeen dhalinyarta ururka horumarinta iyo mucaawinooyinka ee Kalkaal oo isu xilqaamay ka warhaynta iyo caawinta dadka tabaalaysan bishan barakeysan ee Ramadaan iyo cid walba oo ka soo qayb qaadatay barnaamijkaasi